dhacdo aan fariir ah ayay dadka deegaanka ka soo warinayaan deegaanka Caad ee gobolka Mudug halkaas oo la sheegayo in dagaalamayaal ka tirsan shabaab culimo waaweyn oo 10 sano ka hor geeriyooday ay meydadkoodii kala baxeen deegaankaasi masjidka ku yaala ee jaamiciga ah kaasi oo dadka deegaanka ay sheegeen ilaa iyo hadda inay la yaaban yihiin soo dhawaada saaxiibayaal sida dagaalamayaashan ay u faageen meydadkaas haddii dadka sidii lagu aasay ay wali ahaayeen haddii ay wax iska bedeleen iyo sidoo kale xogaha ku aadan sababta ka dambaysa in dagaalamayaashan la sheegay inay meydadka halkaas kala baxeen oo waliba la sheegay sababta ku kaliftay ayaan halkan idinkugu soo baahin doonaa oo aan idinkugu soo gudbinaynaa Cumar Guuxayaan hay haddii uu muuqaalka ku soo gaaro sashar garow saaxiibada la sii wadaag qaybta hoose ee faaladan aragtidina nagula wadaaga marka la soo dhawaado saaxiibayaal wararka ka imaanaya koonfurta gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku soo waramaya in deegaan lagu magacaabo Caad oo hoostaga gobolkaas dagaalamayaal ka tirsan shabaab ay kala baxeen meydad 9 sano ka hor culimo geeriyootay oo waliba waaweyn oo ku sugnaa deegaankaas isla markaana ku aasnaa masjidka jaamiciga ah ee lagu magacaabo Sheekh Ibrahim Wardoon waxaana la warinayaa in 3 meyd oo waliba culimada deegaanka sida weyn looga yaqiinay Allah u naxariistee geeriyooday 9 sano ka hor meydadkoodii halkaas kala baxeen saddexda ruux ee geeriyootay kol hore sidoo kalena mashaayikhda ama culimada waaweyn ee deegaanka ah ayaa lagu kala magacaabaa Axmed Nuur Cali Wardoon iyo sidoo kale Sheekh Ibrahim Wardoon iyo sidoo kale Faarax Barre waxaana la sheegay inay kamid ahaayeen culimada waaweyn ee deegaanka Caad ee koonfurta gobolka Mudug ee dowlad goboleedkaasi mid kamid ah odayaasha deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaana ka soo xigan arrintan waxaana uu sheegay in shabaabku qorshuhu ay ka damacsan yihiin ilaa iyo hadda aanan la sheegi karin laakiin uu tilmaamay inay doonayaan inay ka gataan wadamada gaalada waliba si ay ugu aasaan meelaha dhulgariirada ay ka dhacaan waa sida uu sheegay aqoon-yahankan ama waxgaradka deegaankan Caad ee koonfurta gobolka Mudug oo la sheegay inuu isaga goobjoog u ahaa arrintan oo waliba dhacdo aan fariir ah ku noqotay dadka deegaanka labadaas axad oo ahlu khayrka ku duugnaayeen waxa ka baxshay qawaalishtii gadan jirtay lafaha muslimka baa halkaa ka qoday waad arkaysaan waa garanaysaan meeshaan halkaas ay ka qodeen lafahoodii waxa weeye waxaana qoday ururka qawaalishta oo lafaha muslimka iibsada oo yuhuud iyo qooman balaayo dhulgariir ku dhaca ka iibsada kulligood dad waxay ahaayeen la yaqiin oo muctarifa oo ahlu khayra oo mu'minaan ah oo la yaqaano magaalada Caad muctarifka ah deegaanka Caad ee koonfurta gobolka Mudug waxa uu kamid yahay deegaanadii shabaabka lagula dagaalamay waxaana la warinayaa in qayb kamid ah deegaankaas ay ku sugnaayeen hase yeeshee markii ay baxayeen ay kala baxeen masjidka jaamiciga ah ee weyn saddexdaasi ruux ama saddexdaasi sheekh ee kol hore geeriyooday Allah u naxariistay halkaasna ku aasnaa wax ka badan 9 sano iyadoo ugu dambeyn meydadkaasi la sheegay inay la baxeen